ciidamada kumaandooska Soomaaliya danab ee xooga dalka si xoog ah ay al-shabaab uga saareen deegaanada kala ah Sabiib Caanoole Balado Amiin macalinka iyo dhulka ay argagixisadu ay ka dhigeen barwaaqo bahlagaleen noqday ciidamadu si weyn ugu diyaarsanaa ka hortagga qaraxyada waxay ku guuleysteen inay fashiliyaan dhowr qarax oo maantada lagu leeyahay ciidanka ayaa burburiyay gaari booyad ah oo muddo ay al-shabaab ay ku shubayeen walxaha qarxa si ay bisha Ramadaan ugu halaagaan dadka Soomaaliyeed ee cibaadeysanaya laakiin taasi waxaa loo helay danab oo duqeyn iyo burburin ku laayay argagixisada afayeenka howlgalada ciidamada danab ee xooga dalka Cabdi Cali Raagi ayaa sheegay in qaraxyadan la fashiliyay argagixisadu ay doonayeen inay shacabka ay ku gumaadaan ciidamada xooga dalka Soomaaliya gaar ahaan danab waxay gacanta ku dhigeen 4 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayna ku jiraan horjoogayaal waaweyn waxaana lagu wareejiyay 4taas ka tirsan maleeshiyada hay'adaha sirdoonka xooga dalka dowladda Soomaaliya si loogu sameeyo baaritaano dheeri ah ciidamada isla maalin ahaantii isniinta garankii dambe waxay gacanta ku dhigeen booyad laga soo buuxsho waxyaalaha qarxa lana aaminsan yahay in la rabay in la soo geliyo magaalada Muqdisho ciidamadu waxay sameeyeen meel banaan ayay geeyeen wayna qarxiyeen wax qasaara ay u geystay qaraxaasina ma jiro ayagoo ciidamadu horay u sii watay howlgalkoodii isla maalin ahaantii dambe ee Talaadada waxay sameeyeen guulo la taaban karo ayagoo la wareegay deegaanada kala ah Balado Amiin macalinka iyo Cumar Beer muuqaaladan idin muuqda waa qaar ka mid ah burburka booyadii lagu soo xiray walxaha qarxa waxa kale halkan ku burburay baabuur kale oo ay qaraxyo ku xirnaayeen ciidamo si gaar ah ugu tababaran qaraxyada ayay wateen ciidamada danab ee xooga dalka sidoo kale waxaa la burburiyay xarumo maleeshiyaadka lagu tababari jiray iyo goobo falalka argagixisada laga soo abaabuli jiray Maxamed Xasan Cali idaacadii TV-ga qaranka magaalada Muqdisho.